kamid yahay wadamada ay ku nool yihiin Soomaali tiro badan oo qaxooti ah kuwaasoo isugu jira qaar haysta dhalashada dalka Norway qaar haysta sharciga deganaanshiyaha rasmiga ah inkastoo ay jiraan tiro yar oo haysata sharciga deganaanshiyaha aan rasmiga ahayn ee ku meel gaarka sidoo kale waxaa jira dad Soomaali aan la siin sharciga qaxootiga kuwaasoo diidma laga siiyay codsiyadoodii magangeliyo haddaba waxaa ii suura gashay in aan waraysi dhinacyo badan taabanaya la yeesho gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Bergen oo ah caasimadda labaad ee dalka Norway mudane Cabduqaadir Axmed Raage Waayeel inta aanan guda galin su'aalaha mudane gudoomiye ku soo dhawaw barnaamijka aad maanta martida inoogu tahay mudane Bile Maxamed Cabdi Bile Baastay waad ku maasan tahay inaad igu casuumtay barnaamijkan adiga bahdiinana waa idinku bogaadinaya barnaamijka mudane gudoomiye haddii aan guda galo dhinaca su'aalaha waxaa jira in dad badan oo sugayay sharciga deganaanshiyaha rasmiga ah oo aan la siin wali laakiin dib loogu celiyay sharciyo ku meel gaar ah arrintan miyaan la oran karin waa isbedel qoto dheer oo saameyn xoogan ku yeeshay in dadkaasi ay sameeyaan isdhexgal bulshada inteeda kaleeto waa maasan tahay arrinta oo markasta la isweydiiyo oo soo korortay oo ah arrinta dib u eegidda codsiyada deganaanshaha waa sida u gartaa hadda sidaas kala jeedid arrintaas muddo badan walwal ayaa nagu heysay laakiin haddeertan waxaa maraynaa gabagabo iyo in ilaahay culayska naga qaado dadaalaadka dadka sameeyeen iyo hay'adihii sameeyeen waa uga mahad celinayaa waxaana lagu xadiday oo la yidhi 1600 oo qofood ayay ahaayeen tiradaas waxaana lagu xadiday in la yidhaahdo sanadku markuu ahaa 2017 bishii maarso codsiyadaas wixii ka horreeyay dadka soo codsaday taasoo soo gelayo dadka intooda ugu badan waqtigaas ka hor ay codsadeen oo inta la diidaa inta ugu dambeysay ay ahayd marka codsiyada intaas ka hor yimideen dadkaas rajo fiican ayaa loo muujiyey in ay helayaan sharcigooda taas waa dhambaal u diri lahaa dadka su'aalahaas ay ku yimideen deganaashana inay heli doonaan ayay u badan tahay waan u rajeynaa Allah u fududeeyo